degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodijeex ayaa waxa laga xusay xuska 18 May ee sanad guurida Koobastana ka soo wareegtay la soo noqoshada madaxbannaanida qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta heer degmo iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda waxgarad odayaal cuqaal qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta qaran ee 18 May waxa fagaaraha Dar es Salaam kala hadlay halkaasi gudoomiyaha degmada Dar es Salaam mudane Xasan Ibraahim Cabsiye isla markaana bulshada uga sida wanaagsan isku soo baxeen kala waramay muhiimadda ay maalintan ugu fadhido qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah baarik waxaan u mahadnaqayaa kullay waa laga sheekay taariikhda badan ee ay leedahay maalintani 18 May maalinta la soo noqoshada xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ay ku baxday naf badan iyo maal badan iyo hanti badan baa ay ku baxday maantana alxamdulillah rabbil caalamiin waynu harsanaynaa midhaheedii oo maalintii aynu durka galnay جاهنتي رجع كذا علماي ما أنت واقوه وجابينه نقول أولا ما هذا قلنا سبحانه وتعالى إلهي معي وأمن جواك شيء كبد اللهم إني أسألك أمن والإيمان إيمانك أمن يسكحك مركا كل أنت بدرت أنا هوش شكل وحنا ما هذا قيا ومركا قيمة هي قاضي له كنتي يوم أنا وكلا هريد دقمة دار السلام ويتولوا البمير والبكي مادين وعن صوبت إنه مر والبخاص وكسيدك إنه طبق قوام معي ورنتي ومعي العيادة إنه تاجي سيد عبد القادر بشرقي رقار بحقار صون نقضة وإنه مهندقين الله يبارك وعكرون يدنا أذكم مهندقية يدو السق روح بدنا يسوع بابلين بالشدة إيه بيدك الدول هذا تاي وساردها وكوكت هاي وسارد حنان حوله ورنتي إنه قد تبدي إلا هرجيسا إنك نقل قيب قاطو يجو بوركود ينيدام كود غطا وعكمل وسارد عافماتك ومصطفى عبد الكريم نقلت شغل عبد الرحمن وعكمل وسارد بيرها وعكمل وسارد عبرشده وعكمل معه وسارد هؤلاء جود انتوا إذا شغل وانا مهندقنا شنو البوي كي بعدين يا بريقنا مهندقنا فرق الله بعد يقوم يهمسن أمن قرين نوقع بالسن عقاشة قار هرجسن نوقي يدي قار ملك لين نوقي يدي وحيلوناي يا بعد ما ستي قلب فرنا ونقصد ويننا قيمها على نقل قيب كشيف واحد موجنا سايس ضمنانتين نيين إنه محوها هاي هلقا وشجنا عد عضة وقيمها هي نقشتين أنا قلنا نقصنا بإذن الله تعالى سيد قيمها لا يقدرت له دولار شقيسين gudoomiye ku-xigeenka degmada Dar es Salaam iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Maroodijeex ayaa iyaguna kaasi ka hadlay waxaana bulshada ay ku amaaneen doorka wanaagsan ee ay muujiyeen sida wadaniyada isku soo baxeen maanta waxay tahay in ragina uu yahay macasna loo sheegay 18 May waa maalin qaali inagu ah waa maalin dhiig badan oo soo shubay hooyooyin badan ay u soo gobolleen maanta dad fara badan oo garanaysa ay soo shahiideen caruur badan u soo dhinteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala guushiina siiyay wanaga harsanayna dawladnimadeennii iyo nabadgelyadeennii iyo dhulkeennii ilaahay naga kaxeeyey nabadii nagu soo celiyey oo cadawgii nooga hiiliyey maalinta horta weeyaan maalinta حواجبنا إلهي وما هلنا وإلهي إلهي وحول الله شكرتم لا سيدنكم ولا كفرتم من عذاب الشديد إلهي وحصوا إلهي الحمد لله مليين هذا عذابنا ويكونوا شهي ضد عذابنا كانوا يا تيمانتا إلهي دمجينا هذا فوق والدورك وكان دبل ديارك ودقريه عارك كود ترى سلا سهل كينا هذا حقه وقبضتين وكوي dadkooda la leeyahay baa haydeen oo hooyooyinka anigu waa isku tumay wasaaradda horumarinta beeraha ee degmada Dar es Salaam waxa sharaf weyn ah inaan munaasabadii afraad aan kala qayb galo shacabweynaha sharafta badan ee degmada Dar es Salaam runtii waan oran karo waa qaar u bisil wadaniyada iyo garashada maalintan qiimaha badan leh waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin munaasabadda 18 May awgeed aan uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad anigoo ka hadlaya afkiina
munaasabadda 18 May ee tacabka badan loo soo galay waxaan doonayaa inaan halkan mar kale hambalyo uga diro ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo habeen difaaca ugu jira ilaalinta calanka sharafta badan ee aynu horsanayno ee astaantayno aynu dalalka faraha badan ee caalamka wax kula qaybsanayno waxaan leenahay munaasabadan awgeed dadweynaha reer Daarsalaam waxay idiin soo dirayaan salaan kal iyo laaba waxaana idin leeyihiin jira oo jooga sida aad heeganka ugu tihiin qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waanu idinka mahadnaqaynaa waxaan kaloo nagan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku-xigeenkiisa iyo golayaasha qaranka maanta waa maalin qiimo badan anagoo ka wakiila wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu aad ugu hambalyeynaa dadka xoolo dhaqatada ah oo markasta si fiican noola shaqeeya waxaanu maanta aanu leenahay waa maalin qiimo leh hadal badan looma baahna insha Allah waxaan leenahay maalinteeda ilaahay ha nagu gaarsiiyo maalin qiimo badan caafimaad iyo barnaamij ha nagu gaarsiiyo qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Daarsalaam halkaasi ka hadlay ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan maalinta 18 May